السلام عليكم asxaabta kusoo dhawaada channelka maanta waxaynu sharxi doonaa ESP32 muuqaal gaabana kaga hadli doono ESP32 waxa uu yahay iyo piniska ESP32 qaabka loo isticmaalo sida propertiga ah micnaha sida saxda ah la iskugu rakibo markaad rabtid inaad samaysid project ESP32 markaanu fiirino ESP32 proper way aa u isticmaali lahayd qaabka pinis iskugu xir lahayd marka kusoo dhawaada muuqaalka. Okay, ESP32 shirkad waxaa sameysa shirkad loo yaqaano Espressif. Kaliya waxay sameysaa shirkaddan jibskay sameysaa. Jibkan ku xiran meeshan ilaa iyo intaan. Jibkaas ayay sameysaa oo Wi-Fi built-in-ka ku ah. Waxaa sameeya shirkado kala sameeya third party aa sameeyo qolofyadan iyo naqshadahan. Marka ESP32 marka search gareyso waxaa arki doontaa noocyo badan. Koodkiisa waxa waaye open source waaye qofkii rabo wuu sameyn karaa laakiin jibkan shirkadda sameyso jibkaas soo qaadanaysaa waxay rabtid waa sameysan kartaa marka waxaa jiro ESP32 farqi u dhexeeyo iyo ESP32 muxuu yahay ESP32 waa microcontroller leh Wi-Fi built-in iyo Bluetooth capability leh more faster ah 200 megahertz gaarayo piniska uu leeyahay ESP32 waxay ka badan yihiin kuwa kale piniska ay leeyihiin wuxuu gaarayaa piniskiisa ilaa 36 pin u gaaraa marka waxaa jiro marka Arduino waxa uga duwan yahay kaliya waxay tahay Arduino wuxuu leeyahay maxaa la yiraahdaa range wuxuu leeyahay 16 megahertz ah halka ESP32 uu leeyahay 250 megahertz macnaha intuu saameyn karo macnaha uu gaari karo waxaa jiro laba ESP labada naqshada jirto kuwa kalena way jiraan laakiin kuwa ugu caansan kuwan waaye labadan ESP82 iyo ESP32 ESP82 asaga wuxuu leeyahay kaliya Wi-Fi only waaye piniska uu leeyahay ilaa 17 ilaa 17 ay gaaraan waxaa kaloo jiro ADC waxa loo yaqaana analog digital converter channel channel shay oo analog ah kugu bedelo digital sida sansarada iyo waxyaabahaas kan kaliya hal meel uu leeyahay ESP32 marka aan fiirino isagana Wi-Fi waa built inuu ku yahay piniska uu leeyahay waa 36 pin si channelska uu qaabili karo oo inta sansar ama inta wax lagu rar karo waxay gaarayaan 12 pin ama 12 good badan isaga Wi-Fi built in ku ah aan fiirino marka godadka iyo qaabka loo isticmaalo micnaha inta marka hadda soo fiirino ESP32 waxaa isticmaalaa aniga waxaa kaloo jiro ESP defkeed noocyo badan uu leeyahay ana hadda naqshada isticmaalaa waa ESP32 SR69 waa version kamid ah ESP32 roomkiisa wuxuu leeyahay intaanu gudu leeyahay ilaa iyo 19 god intana 36 saasay ku noqonayaan 36 pin marka waxaa jiro pinis badan aa jiro meeshan oo waxaa loo yaqaanaa power pinis waxaa loo yaqaanaa maxaa la yiraahdaa analog pinis digital pinis marka 3 voltage kan iyo groundka iyo groundkaas waxaa jira laba button oo meeshan ku yaalan buttonkan waxaa loo yaqaanaa reset button markii koodka uu ka qaldamaa la taabtaa kanna waa boot button marka koodka upload sameynaysa la taabtaa meeshan waxaa jiro ADC waxaa daay soo sharxin ADC waxaa loo yaqaanaa channelska loogu talagalay sansarada iyo waxyaabahaas ama analog digital converter channel laba uu leeyahay iyo wax ka badan micnaheedu waxaa laga wadaa ESP32 wuxuu leeyahay ADC1 iyo ADC2 ADC1 kan intaan god ku kooban 34 35 33 ilaa inta uu soo gaara marka kuwan ayaga waa inputs haddii shay la soo akhrinayo kale maanta waxaa rabtaa inaad soo akhrisid soil moisture iyo wax inaad soo akhrisaartaa macnaha kanoo kale temperature iyo wax inaad soo akhrisaartaa marka temperature iyo waxa soo akhrinaysid ma ku xiri kartid ADC2 isaga Wi-Fi conflict waaye Wi-Fi conflict macnaheedu waxaa waaye haddii shaygan Wi-Fi wax laga soo akhrinayo godadkan ama isticmaali kartid waxaa isticmaali kartaa godadkan oo loo yaqaano ADC1 kan waxay power u leeyihiin ama awood u leeyihiin inay soo akhriyaan daato ayadoo loo marayo Wi-Fi-ga inay daato ku soo akhri karaan hadda temperature kan hadda daa fiirino offline waaye humidity temperature la soo akhrinayaa ma isticmaali karno godadkan ADC2 gan ma isticmaali karno 25 26 27 godadkaas ma isticmaali karno
laakiin waxaan isticmaali karnaa godadkan 34 iyo kuwan waa isticmaali karnaa. Marka labada farqi ay kala duwan yihiin intaas waa. ASP wuxuu kaloo leeyahay digital analog. معناها شيء digital analog ka dhigi karno sida speaker iyo waxyaabahaas markaa ku rakibaysid wuxuu leeyahay labadan good 25 iyo 20 waxaa isticmaali kartaa analog to digital maya digital to analog isticmaali kartaa. waxaa kaloo jiro UART ama UART1 iyo 2 UAR kuwan waxaa loo isticmaalaa yani communication markuu ESP la sameeyo shay kale wax kale GPS SMM Bluetooth iyo waxyaas ilaani waxaan dhahnay waxaan soo sheegnay inuu Wi-Fi Bluetooth capabilities inuu leeyahay marka waxaa loo isticmaalaa waxyaabahaas loo isticmaalaa waa 27 26 iyo TX iyo RX intaana u isticmaali kartaa labadan gudaha u isticmaali kartaa. waxaa jira godad aan la isticmaalin oo loogu talagalin in yani lagu rakibin maxaa la yiraahdaa sensor iyo waxyaabahaas yani waxaa jiro godadkana jiraan SD1 SDC CLK CMD kuwan SB iyo SM marka looguma talagalin ha ku xiran sensor iyo waxyaabahaas ha ku xiran kuwan godadkan 6dan god ay u isticmaaleen. waxaa kaloo jiro kuwan oo boot sensitive loo yaqaan ground 0 ground 1 ground 12 iyo kuwan ayaga output ahaan ka fogay bis yani shay output ah ku rakibin nalal iyo waxyaabahaas ku rakibin. waxaa jiro touch sensor ayaga waxa waaye haddii yani shay touch screen ku xiraysid biniskan oo dhan waxaa loogu talagalay inaad touch sensor ku xirtid 4 0 2 1 13 12 intaas oo bin waxaa yani loogu talagalay inaad wax sensor ku xirtid. marka I hope inaad hadda muuqaalkan wax un yaa ka fahantay macnaha aad ka qaadatay nuxur macnaha haddii aad rabtid inaad yani tusaalooyin insha Allah YouTube ka soo gelin doonaa markaa rabtid inaad dab siisid yani groundkan iyo 3 voltage kana kugula talinaa inaad isticmaashid 5 voltage ka waxaa la yiraahdaa wuxuu ESP wuxuu ku furaa dab zaid ah marka 3 voltage groundka waxa ku rakibay breadboardka so breadboardka dab uu leeyahay marka waxa rabtaa ku rakibi kartaa marka muuqaalkeena maanta intaas ku yahay I hope inuu wax un kugu soo kordhiyay oo wax un aad ka fahantay wixii aad fahmaysaa yani hoos nowla wadaag insha Allah muuqaalkana intaas ku yahay waa ku maasantaa daawashada channelkana noo subscribe gareey.